الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال كنا كوبان وحين كجهد لتونا واحد لو يقان السونامي نوجا أكل قاعدة تونا لا صدق في وضع كوبان قيت كوبان وحين كوير تونا وما هي السونامي قيت لبعضنا وحين كوير تونا محاكينا أما محاسبة إن السونامي دعوة قيت استحادنا وحين كوير تونا سونامي في دعي تاريخ العالم كأي ميديا لبا هو وينا أي ندول استاجي تونا هذا الدين يسوي يوم حيث السونامي كلمة السونامي أصلها وحي كسو جيدا لغة ودك جبان waxaa loo yaqaanaa tsunami waa laba kelmadood oo laisku xidhay macnuhuna uu noqonayo uun mawjadaha badda oo kale waxaynu ogsoonahay ama aynu social mediaha ama idaacadaha aynu ka maqlaa iyadoo la leeyahay tsunami baa dhacaysa ama tsunami baa meel heblaayo ka dhacday ama tsunami ayaa laga cabsi qabaa inay waddan hebel ka dhacdo haddaba tsunami maxay tahay tsunami waxay ku timaadaa waa khalkhal ku yimaada waa dabaylo iyo khalkhal ku yimaada badweynta ama gunta hoose badda kuwaasoo dhalinaya موجودة واوين إني كدشان هذا الموجودة هو موجودة واوين أو صدق بوه أو كلا أو حريصان إلى بقلال ميل أو بدوين تاء ساعدي وحيس أنا يعني مسافة جالي سيدي بقول الله سجال بقول كونتن ما كاي سؤالان كلها بدوين تاء لين عدو كمان كيسوي جالي لو حي ساعدي يكون كذا يعني مسافة جالي إلى صدام كيلومتر شو جو حاول جالا إلى بقول في أما صدام متر أو في سوية كأنه أما حيقول كمان طبق gaariga 7 ilaa 8 dabaq ay joogoodu markaa gaariga haddaba muujadahaasi waa muujado waaweyn oo xawaarahoodu aad u badan yahay dhibaato badanna geysta maxaa sababa baynu isweydiin karnaa waxaa sababa sida la sheego ilaa 3 ilaa 2 siyaabood oo weliba ay 2 shay ugu muhiimsan yihiin sababta koowaad ee keeni kartaa waxa weeye dhulgariir ka dhaca gunta hoose ee badweynta talabaadna waxa weeye waa fulkaano ka qarxa badda gunteeda haddii isweydiin dhulgariir kasta ma keena tsunami waa maya dhulgariir kasta ma keeno dhulgariirka waa in laga helaa 2 siyaabood ta koowaad waa inuu cabirkiisu ka badan yahay 8 ilaa 9 uu ka badan yahay talabaadna waa inuu ka dhacaa gunta hoose ee badweynta kaas ayaa sababi kara in ay ka dhalato mawjado tsunami ay ka dhashaan qodobka labaad ee keeni karaa ay ugu muhiimsan waa fulkaano inuu ka qarxo gunta hoose ee badweynta kaasina wuxuu dhalinayaa inuu dhaliyo mawjado waaweyn oo tsunami ah culimada hadda waxaan aad ugu takhasusay ama yaqaana waxay sheegaan inay jirto fulkaano loo yaqaano Colombo oo waa fulkaanooyin badan oo Colombo loo yaqaano oo xiriirsan gunta hoose ee badweynta loo yaqaano badda cad ama Mediterranean-ka ee u dhaxaysa wadamada Yurub iyo Afrika iyo qayb ka mid ah Aasiya taas oo laga cabsi qabo hadda inay qarax samayso maadaama chamberka loo yaqaano magma waxa loo yaqaano magma chamberkaasi waxa weeye fulkaanuhu intuu ku jiro aanu qarxin ee ku jiro dhulka hoostiisa ayaa loo yaqaanaa magma marka waxay leeyihiin magma hadda wuxuu ku dhow yahay inuu qarax sameeyo oo dibadda u soo baxo dibadda markuu usoo baxana lava loo yaqaanaa fulkaanahaasi taariikhda waxaa la sheegaa in uu mar qarxay sanadkii 1600 iyo meelahaas qarax sameeyey taasoo markaa masiibo badan ee ka dhalatay macaljisyada badda ku yaala ee ilaa hadda ay badda ay ka mid noqdeen siyaabaha noocaas ayaa ugu muhiimsan ayaa keena sidoo kale waxaa keeni kara bay leeyihiin qodobka saddexaad oon u badnayn inuu keeno waxyaabaha loo yaqaano dhulgo oo kale ama dhagaxaanta biyaha ku dhacaya cirka oo kale ka yimaada oo badna ama xidig soo dhaco oo kale oo badda ku dhaca waa sababi karaa waxaa loo yaqaano tsunami haddaynu eegno tsunamiyadii dhacay taariikhda caalamka waxaa ugu muhiimsanaa dhowr tsunamidii ugu khasaaraha badnayd ee taariikhda dhacday waa tsunamidii ka dhacday 2004 badweynta Hindiya tsunamidaasi waxaa loo yaqaanaa Boxing Day magacyo badan bay leedahay waxay dhacday 26 bishii December sanadkii 2004 badweynta Hindiya meel u dhow jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia oo boqolaal mayl u jirta ayay ka dhacday tsunamida waxaa ku dhintay dad gaadhaya 230,000 oo qof intii markaa la diiwaangeliyey khasaaro badan baa ka dhashay waxay saamaysay ilaa 20 waddan in ku dhow oo waddamadii markaa badda ku dhowaa ama xeebaha Hindiya saarnaa oo dhan ayay saamaysay oo Soomaaliya waxa ay ku jirto Soomaaliya waxaa la sheegaa ilaa 200 qof inay ku dhinteen tsunamida khasaaradii ka dhashay waxaa la sheegaa markii in 10 bilyan kharash gaadhaya in ay xogay khasaare gaadhaya ay sababtay tsunamidaasi guud ahaan waxay baabiisay sektorkii loo yaqaanay kalluumaysiga
qalabkooda iyo xeebaha ku jiro dhan baa burburay, maraakiib badan ayaa baaba'day, dhismayaal badan baa baaba'ay, hoteelo badan oo kuwii dalxiiska ee xeebaha ku yaalay ayaa waxa weeye ay dhib badan soo gaadhay. waxaa la sheegay inay la awood ahayd bombadii loo yaqaanay bombada atomic bombkii maraykanka ku tuuray Hiroshima waddanka Japan 20,000 oo bomkaas ah inay la awood ahayd tsunamigii 2004. cabirkii tsunamidaas waxay ahayd 9.1 ayaa lagu qiyaasay dhulgariirkii markaas sababay tsunamidaas inay dhacdo. waxaa jira oo taariikhda la diiwaangeliyey tsunami wax loo yaqaano mega tsunami ma badna oo inta badan ma dhacdo, waxaana la sheegay hal mar inay dhacday oo 1950 inay ka dhacday jasiirad ka mid ah gobolka Alaska ee dalka Maraykanka oo badweynta Pacific ahayd. dhulgariir ka dhacay jasiiradaas ayaa waxa uu sababay waxa loo yaqaano mega tsunami oo waxaanu isugu jiray dhulgo badan iyo dhagaxaan waaweyn oo badda ku daatay, meeshuna gacan bay ahayd. deetana waxaa ka dhashay tsunami waxa loo yaqaano mega tsunami waxa weeye tsunami aad xad dhaaf mawjadihi ay u badan yihiin, waxay gaadhayeen ma la sheegaa in ka badan 500 oo mitir ay mawjadahaas joogoodu gaadhay. dhul iska cidlaa bay ahayd, khasaaro badan oo saas aan geysan, laakiin deegaanka oo ay khasaaro badan u geysatay, laakiin 2 qof ayaa ku dhintay, dadka ayaa ku dhintay. waxay noqotay mega tsunamigii ugu weynaa ee adduunka la diiwaangeliyey ama taariikhda ama oo 500 mitir qiyaastii waad garan kartaan intay tahay. hadda dabaqa adduunka ugu dheer hadda oo Burj Khalifa ee Dubai ku yaalla waa 800 iyo waxoogaa mitir, kaa in ku dhow ayay gaadhayeen mawjadaha markaa ka dhashay tsunamidaasi markaa ay sababtay oo jasiiradaasi ka dhacday jasiirad ku taalla gobolka Alaska ee dalka Maraykanka. tsunami horta waa waxyaabaha noocaasa. aad iyo aad baad mahadsantihiin. barnaamijkeena intaasun baynu kusoo koobaynaa, muuqaalkeena intaasun daawan yahay inaynu kaga hadalno wuxuu yahay tsunami aynu dadka u sheegno. aad iyo aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum.